Pep Guardiola waxa uu shaki la'aan noqday mid ka mid ah tababarayaasha ugu saameynta iyo guulaha badnaa taariikhda horyaalka Ingiriiska iyo kooxda Manchester City. Tani markii uu yimid sanadkii 2016, waxa uu gabi ahaanba bedelay hab ciyaareedka iyo maskaxda kooxda. Haddaba daawade, nala sii joog ilaa dhamaadka muuqaalkan, waayo waxaan daaha ka qaadi doonaa xeeladihii qarsoonaa ee hal nin uu ku rogay taariikhda horyaalka Premier League isagoo dhistay boqortooyo aan la loodin karin. Hase yeeshee is-xasuusin, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo. Mahadsanid. Aan usii gudagalno muuqaalkeena. Imaanshihiisii iyo bilowgii cusbaa 2016, Pep Guardiola waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay tababaraha Manchester City bishii Febraayo 2016, isagoo shaqada la wareegay xagaagii isla sanadkaas. Waxa uu bedelay tababare Manuel Pellegrini. Imaanshihiisu waxa uu calaamad u ahaa bilowga mashruuc weyn oo City loogu bedelay awoodda ugu sareysa ee kubadda cagta Yurub. Xilli ciyaareedkii koowaad ee adkaa 2016-2017, xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee dalka England ma uusan noqon mid fudud, maxaa yeelay Guardiola wax koob ah ma uusan ku guuleysan markii ugu horeysay taariikhdiisa tababarnimo, isaga oo ku dhameystay booska saddexaad ee kala sareynta horyaalka. Si kastaba ha ahaatee, xilli ciyaareedkan waxa uu ahaa mid uu dhidibada ugu aasayo falsafadiisa tic-tac iyo dhisidda kooxda. Rikoorkii taariikhiga ahaa ee 2017-2018, xilli ciyaareedkiisii labaad, Pep Guardiola waxa uu dhigay rikoor aan weli la jabin taariikhda Premier League. Manchester City ayaa ku guuleysatay horyaalka iyadoo urursatay 100 dhibcood. Waa kooxda kaliya ee dhibco intaas la eg ka keenta horyaalka Premier League hal xilli ciyaareed. 4 koobleydii gudaha Ingiriiska. Sanadkii 2019, Guardiola waxa uu noqday tababarihii ugu horeeyay ee taariikhda dalka England hal xilli ciyaareed ku wada guuleysta 4 koob ee gudaha dalka Ingiriiska laga ciyaaro: Premier League, FA Cup, Carabao Cup iyo Community Shield. Guushii taariikhiga ahayd ee triple-ka 2022-2023, guushii ugu weyneed ee Pep Guardiola uu la gaaray Manchester City waxay ahayd xilli ciyaareedkii 2022-2023, markaas oo uu kooxda u horseeday 3 koob oo waaweyn: Premier League, FA Cup iyo koobka ay muddo dheer u oomanaayeen ee UEFA Champions League. Waxay noqotay kooxdii labaad oo Ingiriis ah oo guushaas gaarta kadib Manchester United oo gaartay sanadkii 1999 ku guuleysiga Champions League ugu horeeyay 2023. Guardiola waxa uu soo afjaray habaarkii City ka haystay tartanka Yurub bishii June 2023, kadib markii ay magaalada Istanbul ku garaaceen kooxda Inter Milan 1-0. Tani waxay City siisay koobkeedii ugu horeeyay ee Champions League ee taariikhda kooxda, kaalintii rikoorka 4 horyaal ee isku xiga. Guardiola waxa uu dhigay rikoor kale oo taariikhi ah markii uu ku guuleystay Premier League 4 xilli ciyaareed oo isku xiga. Ma jiro tababare ama koox kale oo taariikhda kubadda cagta Ingiriiska heerka koowaad u suurta gashay inay 4 jeer oo isku xiga horyaalka ku guuleystaan wadarta koobabka uu kula guuleystay intii uu joogay garoonka Etihad. Pep Guardiola waxa uu ku guuleystay koobab ka badan 20 koob oo waaweyn, kuwaasoo isugu jira 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Carabao Cup, 3 Community Shield, 1 UEFA Champions League, 1 UEFA Super Cup iyo 1 FIFA Club World Cup. Rikoorka guulaha xiriirka ah ee Premier League. Xilli ciyaareedkii 2017-2018, Manchester City oo uu hogaaminayo Pep Guardiola ayaa dhigtay rikoorka guulaha ugu badan ee isku xiga horyaalka Premier League, iyagoo badiyay 18 kulan oo xiriir ah. Inkastoo markii dambe koox kale ay rikoorkaas gaartay, haddana weli ma jirto cid jabisay rikoorka goolasha ugu badan hal xilli ciyaareed. Manchester City Pep Guardiola ayaa haysata rikoorka kooxda dhalisay goolasha ugu badan hal xilli ciyaareed ee horyaalka Premier League, iyagoo dhaliyay 106 gool xilli ciyaareedkii 2017-2018. Isbeddelka taktikada iyo casriyeynta kubadda cagta Ingiriiska. Pep waxa uu bedelay qaabka kubadda cagta looga ciyaaro dalka Ingiriiska,
waxa uu soo kordhiyey fikradda ah in goolhayuhu uu kubadda ciyaaro sida Anderson iyo adeegsiga daafacyada garbaha ee soo dhexgala khadka dhexe sida Kyle Walker iyo John Stones. Soo saarista iyo horumarinta xidigaha waaweyn, Guardiola waxa uu caan ku yahay kor u qaadista tayada ciyaartoyda. Waxa uu si weyn u horumariyey ciyaartoy laf-dhabar u noqday kooxda sida Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Bernardo Silva iyo Phil Foden oo uu isagu ka soo saaray akadeemiyadda kooxda una bedelay mid ka mid ah xidigaha ugu fiican adduunka. Saxiixyadii waaweynaa iyo dhisidda kooxda reer Yurub, Pep Guardiola waxa uu City keenay ciyaartoy caalami ah oo dunida gilgilay. Saxiixyadii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah Erling Haaland, kaas oo jebiyey rikoorka gool dhalinta Premier League xilli ciyaareedkiisii koowaad, Rodri oo noqday wadnaha khadka dhexe iyo ku guuleystaha Ballon d'Or, iyo Ruben Dias maamulka kulamada maxalliga ah. Pep Guardiola ma uusan yasin koobabka yaryar ee dalka Ingiriiska. Waxa uu ku guuleystay Carabao Cup 4 sano oo xiriir ah 2018 ilaa 2021, taas oo muujisay in kooxdiisu ay u hami weyneed koob kasta oo ay u tartamayso. Rikoorka boqolleyda guulaha, Pep Guardiola waa tababaraha haysta boqolleyda guulaha ugu sareeya taariikhda Manchester City iyo mid ka mid ah kuwa ugu sareeya taariikhda Premier League. Boqolleyda guulihiisa ee Manchester City waxay si joogto ah ugu dhowdahay ama ka sareysaa 70%, isagoo badiyey in ka badan 300 oo kulan oo uu kooxda hogaamiyey. Tartankii weynaa ee uu la galay Jurgen Klopp iyo Mikel Arteta, waayaha Pep Guardiola ee Manchester City waxaa sii qurxiyey tartankii adkaa ee uu la galay tababaraha Liverpool Jurgen Klopp iyo tartankii dambe ee Mikel Arteta. Tartamadaas waxay sare u qaadeen tayada horyaalka Premier League, iyadoo City badanaa uu guuleysanaysay horyaalka farqi aad u yar sida horyaalkii 2018, 2019 iyo 2021-2022 markii ay Liverpool hal dhibic uga qaadeen dhaxalka iyo noqoshada tababaraha ugu guulaha badan City. Pep Guardiola waxa uu horey u noqday tababaraha ugu guulaha badan taariikhda Manchester City. Marka laga soo tago koobabka, waxa uu kooxda u dhisay aqoonsi ciyaareed, midab iyo kalsooni weyn oo ka dhigtay mid ka mid ah kooxaha loogu cabsida badan yahay adduunka, isagoo magaciisa ku qoray taariikhda dahabiga ah ee kubadda cagta Ingiriiska iyo tan caalamka. Ugu dambeyn, waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii. Guardiola ma uusan bedelin oo kaliya Manchester City, wuxuu dib u qoray taariikh kubadda cagta Ingiriiska. Haddaba daawade, maxay tahay koobka ugu weyn ee aad ku xasuusato Pep Guardiola waayihiisa Manchester City? Fikirkaaga noogu reeb qaybta faallooyinka. Hana ilaabin inaad muuqaalka like saarto, kanaalkana subscribe dhahdo. Mahadsanid. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.